shirka ay ku taladowka beela Ashraaf gaar ahaan reer Xasan iyo geeka laga qabadi beledka Muqdisho walina ku qayb galay odayaalka dhaqanka aqoon-yahanada dhalinyarada iyo haraabta beelan ujeedada shirkaya waliba la ka sheegay intii uu seeyay kolaan ku horjeeda dad sheegadowka beelanka weydiyahay saami siyaasadeed anka horeyntii qaar ku mid ah aqoon-yahanada beelan ya ku hadali madala shirkaasay walina iyo sheegana anti marnaba iyo aqbala doona dadka xilka ka weydiyahay sheegadowka beelan Ashraaf gaar ahaan reer Xasan warqado oo hoob yaraadan la koobi kareeyo oo la badiyo arag jarnay laakiin may muuqata intii oo wal Ashraaf dhamaadi haan Ashraaf koobi ila raadiyahay may baan takii daayanay ha on oo ka hadalaana magaca Ashraaf Xasan intii injarna Ashraaf koobi ama koobi nagada doonto ama la ku ogolaado doon intii injarna dadka iska deeyahayaan wal bug ee raas meelo ka sameeyaan qabiil oo lan dhalado ee ma ayna qabiil warqad la ka qoro mihiin ranka dhalasho baahan ini warqado shila ka qoro American bahoy dhalasho American ee raasuday laakiin Ashraaf namada warqad malaha ka galow walan dhalado oo samaawaadkana ka yaal way oo kitaabka Ilaahay sunnadana ka yaala diintu lokale sida qabaa'ilka kale laga galow Ashraaf may la galo kor geel ku rugtumada may la ray burku wiinta Ashraafay may marka hore naftay in dardaaramay bi taqwa Allah azza wa jalla ilaahay ku obsana Allahna abuuri oo niweeri aalubaytu nabiga kaleey salaatu wasalaam dhurriyadii Xasan iyo Xuseen ilaahay niweeri ya mahadaas isku leh marka ma baahan magaagon iyo diinku dhooro baahan hadii oo masaajidka qaylka weerta meelan roora uma leh iniga kala qaar ku mid odayaalka dhaqanka beelan oo shirkaasay ku hadalay iyo waliba iyo sheegana antiyo eedan kuuyin dadka xilka ka weydiisadahay sheegadowka beelan bani aadanka may wahlan wala isku sheegade laakiin gaar ahaan un hata hasani hadii la bariyahan kaago na kormaro kaago dadku wala gadiyaan fadaa un wal magariyaan dooyinku ma jeere maana warqado la suubiyow ama miidi wala ku gudbiyow iyo ummadihi dhown iska kadiro hayd qabaa'ilaadkii Soomaaliyeed dhown bal iska kadiro hayd ma oojin un shireen leeynaba taas inuu ku digtoonaano awlaadan iyo dadkaan dhown sheegna lan leena malle ini bin aadan lan jaa'ifiin bin aadan walbalan ku sheegna dad qaraabad walbalan ku sheegna ehelku walbalan ku sheegna de ilaahay inay dekay maan urta Xasan Xuseen Ashraaf Xasan Xuseen gabagabada shirkooda waxaa laga soo saaray warmurtiyad dhowr qodob ka koobnaa waxaana baaq loogu diray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagareen beesha waxay isku raacday 3 qodob koow Ashraaf Xasan ee gobolka Banaadir waxay ka dhiidhinaysaa oo diidaysa in la kala dilo walaalaha iyo odayaasha ku metela oday dhaqameedada maamulka Koonfur Galbeed iyo guud ahaan ee Soomaaliya sidoo kale beesha waxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo Koonfur Galbeed iyo tan federaalka ka codsanayaan in la kala qaybin odayaasha beesha qodobka saddex maamulka Koonfur Galbeed uu hogaamiyo Cabdilcasiis Maxamed Laftagareen dadka ku dhaqan Baydhabo iyo beesha Ashraaf Xasani inuu cadaalad falo oo cadaalad uu sameeyo waxa waxa beesha ka tabanaysan inuu ka xal mariyo ayaan rajaynaynaa إن شاء الله وأنت أسقط ويكون كوبنتهاي